waan idin salaamay dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada qaybta labaad ee barnaamij gaar ah oo aynu uga hadli doono hodantinimada afka Soomaaliga. waxaa mar kale marti igu ah barnaamijka Axmed Yuusuf oo ah xeel dheere afka iyo sugaanta Soomaalida. Axmed kusoo dhawow fogaal aragga caalamiga ee dalka ama dalka TV. xasan waan dhawahay waad mahadsantahay. afkeena marka aynu soo qaadno waxaynu dhahnaa af waa hadal iyo hawraar, maxaynu ula jeednaa markaynu nidhaa af waa hadal iyo hawraar wuxuu yeelanayaa macno aada u ballaaran. waxa uu sheegayaa afkeenu yani siyaabaha loo adeegsado oo ah marna aynu hadalkii hadal ahaan u adeegsano ama hadal ahaan loo raaraaci karo, marna hawraar ahaan ama literature oo kale loo raaco. sugaanta ama hawraartu waxa ay kaydisaa erayada afka, maxay kaloo tirtaa? sugaantu markaynu ka nimaadno kaydinta afka waxay isku xidhaa dhaqanka iyo hiddaha iyo qofka laftiisa iyo degaanka iyo intaas oo dhan bay isku xidhaa. markaa waxay abuurtaa waxaynu odhan karno dastuurka nolosha. marka ummadaasi dastuurkeeday noqonaysaa sugaantu ama literature. marka ummaddu haddii aanay lahayn literature maaha ummad jiritaankeedu meel dheer gaadhsiisan yahay. afafka kale sugaantu waxay u kala qaybiyaan qaybo gaar ah. inagu ma leenahay habab aynu u kala socno? xasan waa su-aal wanaagsan. afkeenu wuu leeyahay runtii, inkastoon dad badani ogeyn ama dadka qaarkii aanay ogeyn, haddana wuxuu kala baxaa afkeenu qaybo badan oo xataa ka qoto dheer afafka kale. haddaynu soo qaadano imika matalan hawraar, markaynu nidhaahno hawraar waxay u dhigantaa ereyga literatureka ama literaatuurka ay yidhaahdaan afafkan kale. markaad ka timaado hawraarti waxay u baxdaa laba qaybood ah, sarbeeb iyo suugaan. sarbeebtu waa hadal aan sidiisa loo odhan oo ujeedo kale laga sameynayay, waanu ka duwan yahay hababka kale aynu u sameyno hadallada suugaanta ah. suugaantu waxay u kala baxdaa waxaynu nidhaahno murti iyo maahmaah. maahmaahdu iyadu waxa weeyaan wax sidii raadraaca, yani wax run ah oo hadalka had iyo jeer markaad doonaysa inaad wax ku kabto ama runtiisa sheegto, maahmaahdu waxay noqotaa waxyaabaha lagu kaba ee caawiya. marka murtidii waa intii kale oo inagaa markaa sameyna. marka murtidii waxay u kala baxdaa tix iyo tiraab. waxaynu nahno tix iyo tiraab. marka aynu tiraabtii soo qaadano waxay noqonaysaa wixii hadalka caadi loo yidhaahdo ee soconaya aan sharci kale lahayn, laakiin dee sida hadalka caadigaa ma odhanayso. marka tiraabtii iyadu waxay usii baxdaa madiix iyo maaweelo. madiixu waa hadalka uu qofku si baxan u tabiyo, oo matalan warka oo kale, sheekada oo kale, mala-awaalka oo kale, waxyaabaha sidaas oo kale uu qofku tabiyo ayaa xayeysiiska oo kale. waa wixii markaa la tabinaye caadi loo tabiyo. maaweeladii markaa iyadu labay noqotaa. marka waxay noqotaa waxaanaynu naah maad iyo madadaalo. maadu waa wixii ama majaajila ha noqoto, ama googalaysa ha noqoto, ama halxidhaala ha noqoto, ama ruwaayad ha noqoto, waxyaabihii sidaa loo sameeyo ee dee dadku maad ahaan waktiga ay isku dhaafiyaan. madadaalo waxa weeyaan wixii yani qofku uu sport ahaan oo kale ama ciyaar ahaan loo sameeyo dee tartan lagu gala, yani wixii dadku tartan ku gala ha noqoto
orod ha noqoto, kubad ha noqoto, shax ha noqoto, waxyaabahaasoo dhan ciyaaraha soo gala waa waxa madadaalado, waa waxyaabaha ay ku madadaaloodaan dadku. dhinaca kale markaynu tix usoo noqono, tixdu iyadu waxay u baxdaa mud iyo maanso wax la yidhaahdo. mudku waxa weeyaan heesaha ay caruurtu samaysatay iskoodu samaystaan ee aan qaafiyada lahayn ama aan isa saarnayn, laakiin dee u muuqda inay tix tahay. waxaa kaloo ku jira gabayadan aynu imika odhan karno gabay jacburka oo kale, oo ay tiriyaan matalan doodaan iyo hadraawi iyo cabdillaahi cabdishuba oday la oran jiray iyo marka waa gabayo sidooda caadiya, laakiin waxaa ka maqan qaafiyadii oo ereygii uu lagu darayay dhawaqiisa ayaan jirin. marka maansadii haddaba waxay noqotay wixii kale soo hadhay dee sharciga leh dherer gaara leh wax waliba u dhayin. marka markaynu maansada soo gallo waxaynu odhanaynaa maansadu waxay u kala baxaysaa hanwaran iyo hees. marka laba qaybood bay kala noqonaysaa. qaybtan hanwaranku waxa weeyaan qofkan tirinaya ayaa iska leh, marka isaga magaciisa ay ku taallaa, isaga iska leh, keligii buu sheegaa, isagaana golaha ka sheega. marka waxaa ku jira matalan gabayga oo kale, guurowga, buraanburka, geeraarka oo kale, shiribka, saarka oo kale, jiiftada, yani qof baa tiriya oo leh. marka iyagu si caadiga qofku wuxuu doonayo ku sheegaa, qof baa iska leh. heestii markay noqoto haddaba, heesta iyada cidi ma leh, waxay kaga duwantay ta kale, cidi ma leh. heestu markaa waxaa loo adeegsadaa yani matalan damaashaadka oo kale waa loo adeegsadaa heestii, hawshoo kale waa loo adeegsadaa. marka inta badan ee dhaqan ahaan loo adeegsadaa waa damaashaadkii iyo hawshii, ama dihaal iyo damaashaad labadaasaa loo kala adeegsadaa. marka ay adeegsanayaan waxa weeyaan tii aynu niri waa damaashaadka, waxaa kamida oo ku jira waxyaaba aynu hadda aada u naqano oo matalan ciyaaraheena aynu nidhaahno, ciyaar soomaalida oo kale, hirwadii baa ku jirta, waxaa ku jirta tii kale saylicdii baa ku jirta, dhaantadii baa ku jirta, baarcad batarkii baa ku jira, jaandheerta mid kaloo la yidhaahdaa ku jirta, walasaqadii baa ku jirta. yani ciyaarahaasoo dhami waa wixii damaashaadka, yani waa wixii aynu inagu u isticmaalo farxadda oo kale. qaybtan kale ee haddaba iyagu ah heesaha kamid ah waxa weeyaan hees hawleed. marka dihaal iyo damaashaad bay u kala baxaan. marka dihaalku waa wixii hawl lagu qabanayo si ay hawsha u fududayso. marka haddaba iyagii waxay u kala baxaan laba qaybood, heesihii hawsha, hawl maalmeed oo maalin ku dhamaata iyo hawl waqti qaadata. marka iyagii hawshan maalinta ku dhamaata matalan waa shaxan iyo shamareer baa la kala odhan karaa labadooda. matalan oo usoo laabanayaa heesa hawleedka iyo tan shaxanka, waxaad yara moodaa hadda waxaad soo tirisay tirsi badan iyo noocyo kala duwan oo aynu u kala dhigdhigno dhammaan qaybahaas suugaanta iyo waxay u kala baxaan. afka carabiga marka la eego, marka aynu ka hadlayno wax ku saabsan tix iyo maanso, waxay u kala qaybiyaan nashiido iyo shicir. inagu marka sidee baynu ku kala garan karnaa dhammaan noocyadaas kala duwan ee aada soo sheegtay? runtii waa su-aal wanaagsan xasan. afkeenu markaad u eegto afafka kale aada buu uga ballaadhay. matalan suugaanta oo kale oo dee afafka kale oo dhan waad aragtay siday uga faalloodaan. marka inaynu yeelano waran uu qofku iskii u hadlo oo matalan sida gabayga iyo geeraarka iyo buraanburka iyo waxaan waa yani waa inta aynu dheernay afafka.
laakiin sidooda iyagu waxay kala leeyihiin sharciya haddana oo matalan buraanburka oo kale haweenka ayaa sameeya, waxaanay sii kala leeyihiin yani sidan ay u kala dhaadheer yihiin matalan gabayga iyo guurowga iyo laba qaybood bay u kala go-aan oo matalan qayb walba inuu erey ku jiro isla dhawaqaasa oo qaafiyad isku mid ah. geeraarka oo kale wuu kasii yara gaabayay, buraanburka iyo way kasii gaabayin iyo saarka iyo jiiftada iyo dhammaantood way kasii wada gaaban yihiin intaas. marka waxay had iyo jeer ku tusaysaa inaynu aqoon ballaadhan u leenahay adeegsigan suugaanta ama tixda. heesa hawleedka imise ayay u qaybsamaan, maxay isku kala duwan yihiin? xasan, waa su-aal wanaagsan. waxaa loo kala qaybiyaa sidooda laba qaybood oo waxaynu odhan karnaa waa shaxan iyo shaamareer. shaxan iyo shaamareer waxa weeyaan midi waa wixii farsamo la adeegsado, midna waxa weeyaan wixii hawsha sideeda hawl degdega ama ku sugaysa aada adeegsanaysa. marka kuwan shaxanku waa wixii farsamo iyo qurxin iyo waxaase waa hawsha waxaa leh haweenkoo quraa sameeya. marka waa hawlahan matalan markay sameynayaan hararka iyo kabada iyo aloolka iyo waxyaabaha waqti bay ku qaadataa. marka heesaha ay sameeyaan ay ku qaadaan waa heesaha aynu odhan karno waxa weeyaan heeso shaxana. qaybtan kale waa qayb waqti gaara oo go-an oo hawl ku sugayso aada markaa fulinayso. marka matalan marka geela la waraabinayo oo kale, xoolaha marka la aroorinayo oo kale, marka beerta la falayo oo kale, caruurta marka loo heesayo oo kale, caanaha marka la maalayo, yani geela xoolaha marka la hareynayo, yani waxaasoo dhami waxa weeyaan hawl waqtiga ana marka reerka la dejinayo ama la furayo ama reerka la rarayo dee guriga iyo la rarayo. marka kuwaas waxay leeyihiin waa hawl waqti gaara oo degdega oo waqti ku baxaysa. had iyo jeer heesaha caynkaasa laba siyaabood bay ku yimaadaan oo way tixdoodu waxa weeyaan wax midna way yara gaabanto imika matalan to dan rahno shubaalka oo kale. marka shubaal iyo salal baa inta badan loo sii kala dhigaa. shubaalka wuxuu noqonayaa kuwa yara degdega ah ee matalan haddaan qaar soo qaadano markay leeyihiin geel fulay gaadhi maayo haka daba fulay geela la waraabina, yani kuwa sidaa u dhaca ritamkaa yeesha. kuwa kale way ka yara dheeryihiin oo marka awrta la raraayo iyo ayay inta badan ku yimaadaan oo way ka yara dheeryihiin. marka salal iyabaa la idhaa iyaga. marka run ahaantii waxaan leenahay suugaan aad u kala baxano qaybiba qayb ay tahay, waana la kala leeyayo dee haweenka iyo caruurta iyo dumarka iyo ragga, yani bulshadu qaarba qayb bay leeyihiin. marka aada bay ayay suugaanteenu ay u sareysa qaybtan waliba maansad oo aynu dee aada u isticmaalno. axmed, ma jirtaa daraasad gudoqodan oo laga sameeyo suugaanta soomaalida? dabcan dee suugaantu aada bay u ballaarantahay, waxaad sida yara moodaa inaynu in kooban aynu diiradda saarno, laakiin wax badan aan weli si qoto dheer aan loo baarin. marka maxaad is leedahay maxaa caqabadahoo dee arrintaa hortaagan? runtii way jirtaa in yani la baadho ama dee daraasado laga sameeya, laakiin daraasado maaha is haysto oo qof waliba dhinac buu ka baadhaa ama qayb buu ka baadhaa. matalan waxyaabaa qaar dee marmar degaankay ayay u badataa, laakiin suugaan ahaan ama literature ahaan si guud oo yani literatureki ama dee suugaantii ay noqoto wax toos looga hadlo oo sida ballaadhan ee u jirto looga hadlo maan arag. laakiin
runtii laftaydu imika waxaan wadaa buugaan doonayo daraasad waqti aan wadayo suugaanta iyo sida u kala baxday waxyaabahay tahay iyo weliba qaybaha dee ay kala tahay oo aan talan dee midhahii oo sida loo sameeyo iyo ama dee dad yow isticmaalayo aan ama gabay ha noqoto ama geerar ama waxyaabaha aan qaar ka soo qaato tusaalooyin marka waan wadaa runtii aniga laftaydu laakiin waa hawl u baahan in wax badan laga qabto. axmed waad mahadsantahay. waad mahadsantahay. waa tahay daawadayaal, waa qeybtii labaad weeye, waxaad naga filataan waa qeybtii saddexaad. waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin, intaynu kulmi doono mar kale. waa anigoo xasan yuusuf aala. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.